wasiirka wasaaradda dib u dejinta Somaliland mudane Cabdirasaaq Cali Cusmaan ayaa waxa uu socdaal howleed ku tagay deegaanada buuraha iyo xeebaha ee goboladan Awdal iyo Salal isagoo soo indheeyay xaaladda dhabta ah ee deegaanadaasi ka taagan gaar ahaan abaaraha soo noqnoqday muddooyinkii ugu dambeeyay ee deegaanadaasi ka aloosnaa. wasiirka wasaaradda dib u dhiska iyo dib u dejinta intii socdaalkan howleed ku maqnaa oo uu ku sugnaa dhulka buuraha iyo xeebaha ee goboladan Awdal iyo Salal maamulada deegaanadaasi isagoo kala hadlay xaaladda deegaanadaasi ay ku sugan yihiin iyo sidii loo soo gacan qaban lahaa dadka deegaanadaasi ku dhaqan ee abaaraha ay la degeen. wasiirku waxa uu ka hadlay madalihii kala duwanaa oo kulamada kula yeelanayay qaar ka mid ah maamulada deegaanadaasi ka arrimiya iyo dadka barakacayaasha ah waxaana hadaladiisa ka mid ahaa maanta waan arkay gargaara insha Allah taala waxaan keenayaa imka moodhan laakiinse inaan mar walba ila joogo oo wixii kulbaan la qaban karo aan yaaqo alxamdulillah kumadeedo kolba wixii ay qaban karto waan qabanayna kolba ay tan istireen waan soo diray hadii ilaahay roobka keenay ilaahay baan waa la kala noqon oo walba meeshii sibtay ilaahay baan kala noqon ilaahay wax rajinaya gacan ilaahay baa lagu dirgaa gacan bilaadan lagu dirgo inuu ilaahay gacan weyn noo qaado gacan khayr qabta oo ilaahay faraj noo qaado. sidoo kale qaar ka mid ah dadka barakacayaasha abaaraha ay ku sugan deegaanada buuraha iyo xeebaha ee goboladan Awdal iyo Salal gaar ahaan deegaanada Gargaara iyo Garbadadar ayaa waxay ka warameen xaaladda dhabta ah oo ay ku nool yihiin xilligan. nin iyo tamaradi weeyaan kii dameer yar haysta uu ka kala walaalkii uu la cabay dhabarku ku dhaamiya dadka dhabarna muxuu haweemaya laba caagood buu qofku soo qaadi kara arki digad waa noqnoqo dawgaaba ku dhintay dad tawgu daran waa taa faraxsanahay sababtoo hawlahan cidiba kamal cid alla cid kale aanu ma ogi inakaasi uu noo yimiday uu dadaalay aad iyo aad ugu mahadsan yahay daraar uu lilmeeyay garanaya wixii karaankiisa hadal haday tahay hanti uu soo gudbiyay haday tahay jeebkiisa wax ka taray dadkana oo dhaqaraano jeebkiisa wax ka taray walaalahayo anaani waa weyn maanta kuna duu wasiirka dib u dejintu noo yimiday waxaan anagu waan dheregnayba baahanahay waxaan de horta anagu maaragtay waxa la ogyahay day waxaan haysanaa ma anaa jirto anaga de xoogan cilla naalo oo dunya uma naalo oo maaragtay xoog meel nooga socdaa ma ayaan jirto laakiin waxa weeye hay'adahaas kolba wixii ay noo keenaan baan halka ku naalo. si kastaba arintu aatay wasiirka dib u dejinta socdaalkan uu ku tagay dhulka xeebaha iyo buuraha ee goboladan Awdal iyo Salal isla markaana uu ku urgalay xaaladda dhabta ah oo ay ku dhaqan yihiin dadka deegaanadaasi ku nool ayaa waxay noqonaysaa midii ugu horeysay wasiirku ku tago deegaanadaasi intii loo magacaabay xilkan wasiirnimo.